bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horeysa bahda media ka dubeysa waa salaamaya salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ah Ayuub Cumar Sheekh Cali, magaca hooyadii Jawhar Faarax Dalmar Ismaaciil, deegaankayga dhalashada Qandala, waxbarashada iskuulka iyo ardada isla Qandala. Da'deeda waa 32 sano jir aan ahay. Iskoolka waxaan kaga tegay dugsi dhexe. Iskoolkii goortaan ka tegay waxaan galay shaqo darawal. Shaqadii darawalada anoo ka shaqeeya oo ku dhex jira waxay soo food saaray nimanka al-shabaab iyo Daacish. Ninka la yiraahdo Jaamac Aadan ayaa igu khasbay inaan galo deegaankayga aan deganahay. Way joogaan Jaamac Aadan Tusbaxle ayaa igu khasbay deegaanka, inkasta ay joogaanin magaaladana joogaanin aan dhinacna uga baxsan karin. Igu hanjabay dhibaatadii igu daray bay ahayd. Aniguna dee naftaan la baqay. gaari baan watay, waaraha iyo dheynayaal baan iska wadan jiray. Markaasuu meeshii aan u shaqayn jiray bay joogaan. moogta haddii waa 2015 sidaas baan ku khasbanaaday oo dee aan ku raacay shaqooyinkii ugu horreeyey magaaladan ka howlgalay, magaalada Boosaaso. Amiirku wuxuu soo diyaariyo buu noogu yeeri jiray dhalinyaro badan anagoo ah annaga ka tirsanahay. Markii ugu horeysay oo aanu gacanta wax ka geysano, nabadoono badan baan u geysanay iyo ciidamo badan oo dowladda ka tirsan. Markii ugu horeysay oday nabadoona ugu hayay anigana ehelkayga ayuu igu khasbay. Aqoonna uma lahayn, ma garatay. waxaa la jiray Muuse Xaaji Faarax. Gacanta ugu horeysa anigaa lahaa, gacanta labaad Maxaa Bashir baa lahaa, gacanta saddexaad waxaa lahaa ninka la yiraahdo Cabdulaahi Salaad Boos. Amiirkuna waa nala socday, Aadan Tusbaxle, Jaamac Aadan Kaarbuno anaysiis. wuxuu ka dhacay Yaasmiin aageeda hotel Hogad xilli habeena uu ka dhacay. Kabacdi waa ka tagnay, ina lama ogaan. wax laga yaabaa dee waxyaalo badan oo haddii doonto lacag ha noqoto, haddii rabto dee damiin iyo wax kasta ha noqoto. nabadda waxyaala loogu dowgalay baa jira. moogta inooma sheegin markii howlaha gudaha ugu dhiiraday. nabadoonka Bashir Muuse Kooti masaajid baan ku dilay, ciidamadiisu watay. Bashir Muuse Kooti masaajid suldaanka Jaamac baa nagu amray, waana nala socday aniga iyo Maxaa Bashir Maxamed Ciise. labada gees bay ka istaageen ridda laga soo galo. ciidamaduna way joogeen, gudahana waa ku jireen, ma garat. waa ituseen. anna sidii baan masaajidka ku galay oo ku dilay. jimci ma ahayd salaad jimcaha mubaarak. tashkiilada jaamac dhigay baan ku galay oo taatig leh, ma garat, oo karti leh, ma garat. sidii baan ku galay. amarka ilaahay baa igu noqotay. wax kastana ilaahay baa qadara, ma garat. kaasuu ahaa gacanta aniga lahaa. madaxa iyo meel kasta ga dhufan. xoolaa ciidanku alaab baa u diyaarsanayd. baa u diyaarsanayd. waajibkooda mudan lahaayeen, ma garat.
lacag badan ninku waan khiyaamay lacag badan nama siin jirin ma garat lacag iska yar shasha 200 na siin jiray ma garat mar dambe xisaabtayna uu dhihi jiray mana dulmiga iyo dhibaato nagu hayay ka mid tahay taasuna nabadoon awaare Saciid Maxamed awaare u dilay gooliska aasheeda ninka la yiraahdo waan hayn aniga iyo jaamac iyo Maxamed Ashir iyo Cabdullaahi Hunge gacanta waxa lahaa ninka la yiraahdo Hunge anaguna iska waxaan hayn waardiye amiirkuna waan la socday amarkuu bixiyay goobtaas uu ku baxay lacagta lagu qaatana 200 ma gartay ninka la yiraahdo kaligiduul askari dawladda oo ka tirsan buu ahaa lagu dilay xilli habeenimo ah himilo isagoo dilay gacanta nin askari oo dhiiran buu ahaa muddo badan la raacay dhibaato badan sameeyay islaalinaya oo aanu ka baqay dhowr jeer macnaha jaamac amiirku rag u diray oo laga baqay Maxamed Abshir iyo aniga ku dabrinay ma garatay oo ku baqnay ya sidaas baanu ninkaasna waa ku dabrinay ka baqnay inuu nagu istaago waxba naga leeyahay ha ninka afur baha ma garatay sidaas baanu ninkaas ku dilay ameerikan raacnay lacagahan qaadanina loo qobulsiyay waa ka tagnay kala yiraahdo gudana taliya katroolka aga safari baanu ku dilay ameerika soo wiiday aniga iyo Cabdullaahi buu noo yeeray dilka baskaradu noo dhiibay gacanta warsa aniga iska lahaa gacanta labaad Cabdullaahi lahaa ameerika raacnay goobahayga iska hartagnay halkaas waxa 200 baqataan nabadoon Ali Ismail Ali askar oo lagu dilay xaafadda Masjidyo Boosaaso masaajidka dacwa agiisa waxa soo weediyay ameerika anaguna gacmaha lahayn aniga iyo ninka la yiraahdo Maxamed Bashir gacmaha lahayn gacanta warsana lahaa gacanta bisay ninkaas lahaa Bashir baalaha waxa ameerika soo weeday lacag lagu qaatay 200 buu siiyay xilli habeenimo ah wala soo daba galay gurigiisa socday saasoo ninkaasuna ku baxay taliya Aynab oo lagu diray hubaal oo gacanta waxa iska lahaa Maxamed Abshir iyo Oliyo anagu gaari baan waday darawal baan ahaa wiidadan Cabdullaahi Mahonga baa iska lahaa iyo jaamac ameerika oo noo waday lacagahan ku qaadanayna waxay ahayd 150 buu siiyay saasoo ninkaasuna ku baxay maalin bixid iska balqan iska hayd shirkadda Golis Maariyaha oo xilli habeenimo ah ku dilay Golis kadaasheeda gacanta Cabdullaahi baa lahaa ani maxaa wiidaan waardiyaan hayn jaamac ameerku waan watay rag baa jiray wiida ah oo la soo tukaday oo daba joogay fal raggaas ma garanay maadaama telefoon kula hadlayay anagu madaxtiyahayn saasban ninkaasuna uu ku baxay lacag lagu qaatay 200 bixid waan kala tagnay ninkaasuna kaas waxa inta aan garanayo saabirshada xisaabiyaha oo ku dilay suuqa bakhaarada aniga iyo ninka la yiraahdo Oliyo ninkaasuna kaas waa lacag ku qaadana 150 bixid jaamac baan soo diray waan la socdaa ku xigay inta xasuusto maalin ninka la yiraahdo taliyaha Gutabari oo waxa ilka case oo sawirkiisa ii keenay oo aan ka diiday oo ka maqnaa dhibaato ay dileen oo aniga macnaha adeerkii ahaa sawirkiisa ii keenay aan ma dilaayo dhibaatadii macnaha soo gaadhay bay kamid ahayd ma garat oo igu xumeed caqabadaha waxa dilay ninka la yiraahdo amarka bixiyay jaamac rag buu u adeegsaday rag haduu ii sheegay Maxamed Abshir iyo Cabdullaahi buu iiga sheegay ma garatay
kabacdi xaafadda markaa tagay ka war helay si xun baan uga xumaaday ma garatay waxaan ogaaday inuu macnaha dee barees ragga ku hayo anagoo daacisha waleen jiray anagoo al-shabaabna waleen jiray waxay igu khasbay inaan anoo diro wala dhibtaa galo meesha aan ka shaqeeyo way joogaan magaalada way joogaan waxa leeyahay haddaadan hawshaa gelin adiga unbaa u maqan ma garatay dhibaato badan oo iga soo gaartay ninka la yidhaahdo ilka casina nimankaas baa dilay rag badan baa tiimkayga ku baxay oo fara badan oo dee haddeetaa wax badan baa xasan baa jira ma garat rag badan oo saaxiibadaya oo lay dirana dhibaatadii igu xumeyd oo iga soo madhabay ahayd ya waxay ahayd waxaan dareemay inuu barees dadka gaar ku raacanayo jaamac oo ii sheegay 3 nin oo inaan soo dilo aniga khaas u soo dilo ilo intii kale waa khasbanaa nin baaskoolad lagu hayo macnaha la daba joogo baan ahaa 3 nin oo nabadoon ku jiro nabadoon musamira ku jiro oo adeerkaya taliyaha dhegadheera ku jiro sarkaal guuta bariyo cabdi aadan oo saaxiibkay ku jiro oo saaxiibkii lilaahay oo macnaha saaxiibkii lama lahayn naga yaalka loo kala soconaa ma garat mar xaafadii saxan jirnay mar xaafadii saxan jiray baaskoolad buu soo dhibay ragga kulli waa wada arkay ya tii aniguna dee qalbigayga waa ka waayay inaan ku dilo ya rag aan dili waayay bay igu noqdeen mana khasbani sidaas baa ilaahay caqligayga iga soo ceshay cabdiaana weel waa seexanay taliyaha dhegedheerana macnaha dee deris baan ahay labadii guriga iska soo horjeedaan nabadoonkana waa igu diray amarkii waa jabiyey markaan shaqo tagay oo subaxdii shaqo tagana aniga baa la toogtay dhaawac baa noqday aniga oo sariirta ya jaamac iyo ciidanka saygiis amarkii aan diiday ragga oo aan cafiyey ya baa dhibtaas igu soo gaadhay anigoo isbitaal albaa is arkay ya haddeer bay qirteen ciidanka baa wareystay wixii waa fashilmeen waxba lama qarin karo ya dhabarka halkaas iga soo dhacay ya rag baa ya suuqa dhexdiisa bartamaha joogay gaari baan raranayay meel baan wax sharaabiya ka cabaayay cafeteria sidii baa ku dhaawacmay waa la soo qaaday national baa lay keenay dhibaatadaas baa iga soo madhay amarkii haa aan fulin waayay bay igu dileen qarax ugu horeeyey markaan nimanka raacay bay ahayd wuxuu ka dhacay suuqa bartamaha golcali halkaasaa la geliyey xilli habeenimo waa la gelinay anugu waa la soo waardiyaan iska ahaa maxamed abshir jiir ninka la yidhaahdo amiirka oo la wata iyo muhoge intaasoo nin baan ahayn meesha habeennimaa gelgeliyey xilli barqarna waa la qarxiyey jaamac aadan tusbaxle baa qarxiyey oo riday ma garatay macnaha xilli 3 saaca way qaraxday dhibaato badan baa ku dhacday dad badan baa ku dhintay dad badan oo ku dhaawacmeen ciidamada la beegsay meesha jeegboonti dowladda ah oo jeegboonti baa la dhigi jiray halkaas baa lala beegsay oo loogu talagalay lacagaa lagu qaatana 200 bay ahayd intii in soo gaadhay annaga wuxuu nagu khiyaamay jiray macnaha gadaal bay ka xisaabtamaynaa ma garatay qare oo aan xasuusto wuxuu ahaa himilo oo ka dhacay aaga himilo meel buusha oo dhalinyaro badan iyo askar badan fariisan jidhay xilli habeenimo ah waa la geliyey meeshaas qaraxaas waxaa geliyey jaamac iyo ninka layihahdo maxamed abshir iyo cabdillaahi mahoge anigoo la socday oo gacanta dhaawac ka ah halkaas baa la gashay goortii macnaha la fariistay oo xilligii ugu qaylo oo murqaanka ugu fiicnayd baa la beegsay qaraxii baa dhacay meesha i tusay meel hormuud buu idhibay halkaa ka qaraxii baan taabtay waa qarxay waa ka tagnay lacagaan kala qaadanay 200 xaafad ayaa kala aadnay lama qaban lama dabagelin dadkiiba fajacisay ku noqotay isagana dee rag badan oo baa jiray wiida u ahaa oo macnaha dee aanu noo sheegin oo macnaha dee nala socon oo waxay ahaayeen kuwa u soo duubaya
kuwa inta dhimatay u soo sheegaya ilaa anagu dambiilayaal fikaday baan nahay ya isbitaalka rag buu u dirdiraya la hadlayay oo amiirkeygana wata ya dhibaatadana sameeyay naguna khasbay inaanu sameyno gallo qaraxaasuna qaraxaas wahaa qaraxa ku xiga magaalo cad buu ahaa xilli habeenimo ay gasheen markii gelinayeen lama socon rag buu ii sheegay jiir baa ku jiray maxamed abshir baa ku jiray maxamed abshir maxaa ciise ku jiray xilli la qayilay oo rag loogu talagalay ciidama ay ahayd meel buusha ay fariisin jireen lana makaansaday wixii ilaahay ka badbaadiyay waa ka badbaadiyay xilli la fadhiyo qaad loo fadhiyo oo maalin habeen ahayn maalin ah oo ay soo kaxeeyeen meeshii baan nimi gaari barbakisa wadanaa qaraxii baa la diyaariyey meeshii ragga jooga baa la soo ogaaday waa diyaar baa la yidhi halkaa taaba bay dheheen qaraxii baan qarxinay remoodka dhaa taabtay way u khasbeen halkaa taabow amar bay ahayd macnaha inaan qarxiyo inaan naftay badbaadiyo saasaan ku qarxiyey kii tulan niiko ergada warsigeliga odayaashan wadoonada ayaanan ceebabin markii halkaas bay habeennimo iyadana la gashay waxaa geliyay tiimkayga amiirkayga jaamac tusbaxle magafe baan u aqaan ya ninkaasaa geliyey iyo maxaa abshir iyo jiir iyo ragga noocaasa xilli habeennimo bay gasheen anigana waa ay soo kahaysteen maalinta la qarxinayo meeshii baan nimi goobtii baan nimi gaariga anoo ku jira meeshii hadirtaa waxsaasa kama xasuusto iyadana waa la qarxiyey halkaasuu baaskooladiga hayaa anaa taabtay baaskoolad bigu hayaa macnaha inaan qarxiyo macnaha dhibta iyo belo kasta ila soo doontaa macnaha doqon ninka adkaatay weeye ya macnaha ciidan baa imaan jiray macnaha meesha odayaasha waa lagu khaldamay ciidan baa meesha usoo socday anaa oo ku khaldamay odayaasha looma socon meesha ciidan saartoo fariisan jiray oo malaleeya ciidan naqshadda iyo taariktiga wax lagu leenayo isaga maskaxda ugu jidhaa annagu adeegayaal baan nahay adeegaygaan fushisa baan fulinaa lacagtaan ku qaadanin 150 baan iga soo gaaray wuxuu yidhi mar dhan bay xisaabtamaynaa xisaab xir baa jira lacag fiican baa la helayaa maanaa dhagarta oona dhagre wey ya saasuu nagu dhagray qaraxaasuna kaasuu ahaa mid maxkamadda baa jiray bamba aan ku turay oo dad askara iyo dad masaakiin oo wadada maraaye ooliyaa ku tuuray jaamacana waa ku khasbay gaban yar buu ahaa dhibtaasna maalin bay xilli maalin barqadha bay ahayd 4 saac bay ahayd dad wadada maraayana waxbaa gaaray ciidankana waxbaa gaaray sheedidan rag macnaha wiida ahna waa u joogeen macnaha jaamacaadan tusbaxle kaasna waa xasuustaa qarax uu isagu gaar u ahaayo geliyey kol cali isla towba sanaqad geliyey baa jiray kor maalin oo qarxay oo ciidan wax ku gaareen baa jira kaasna lama socon isagaa gacantiisii ku qarxiyey qalaarna la ah taliyaha gabaweyne afridood lagu dilana waa mar la dhaawacay marna la dilay isna gacanta tiimka ku baxay markii hore toon ugu khasbay aniga iyo hogoon ugu khasbay macnaha xabadaha waa dhaafinay nin ma garanayno ahaa dil uguma talagelin waa cararay nin baa isna cararaya oo xabadaha wax fiirinaya bay xabadiisii qaateen oo ku dhintay markii labaadna jaamac baa ninkaan dili maayo ninkaas oo macnaha naqshadii u fahmay macnaha afridood buu rag u dhigay isagoo waardiye wata wuxuu dhigay ninka la yidhaahdo maxamed abshir maxaa ciise oliyo iyo ninka la yidhahdo abdullaahi muhonge iyo isaga way dirireen markii anuu meel ku dhow baan joogay way dirireen waardiye gaban yaroo fariidaa la socday markuu dareemay tiimka iyo taliyaha staafkiisa hal wiil baa la socday dhiiran mar horetana waa la dhaawacay waa digtoonaa
waa is arkeen waa dareemay waqti belo soo socdo xabadu raacsaday lagu bilaabay isna waa xabadu ku riday gabankuna waa dadaalay in shaytunta qaabay dirayeen wiilkii dhaawac waa gaaray taliyina dhaawac waa gaaray oday meel ka casheenaya digir cunayana digirtii baana markuu baa xabaday fininkii waa gaaray xogaha ayaa la dhihi jiray dhaawacii uu dhintay anigu waa ka warhayay macnaa dhaawac maduu dhaawac ahaayo siriya qaaday muddo badan 2 bilood kadib buu hortii Ameerika noo joogay jaamac magaalada noo joogay anaguna dee baadiyaha dee wax badan kuma maqnaan jirin ragga soo dalaci jiray oo soo kala wareegi jiray markaan imaano irbo diyaarsan anagoo warhayn oo dhibaatada ka carayna ayuu nala beegsan jiray haddaanu safarnahay wana soo khasbi jiray xaafadaha igu yaqaan boostaajyada ka rarno yaqaan ana boorsan wahay ya saas waqti ay ku keeneen qaraxyo kale حتى سؤال يمكن يساعدوا أرجع في القصة يبقى على قرحي أن لصق واجران كترول كقلته حيالا بدن السميين وقرحيين لأنه بنادم بنا هي أنت أن لصق ذي وشيء حيالا كلته السميين تيمكو يفربدين وشها سؤالي جامع أو سفر عنه وشيء كسنين مالين هو قال نمعنا يوخص بإنان غيره صاحبنا أنا هاي بانو ميل وذا فرسناي مركي كان إنا هوري يدب معنا ده إنه أنا قادو ما هي أنا قادو ما تبعي ركز كلي باه مركي بنكو هذه بنك أنتو كم غنا بان بارتي هلا لعك هذا رفض كلف كيني قارتو كلف مش وقت بكو جدا أنا أجيب كيسان بارين ku jira inuu wax iga qarnaayo saaxiibkii weeye lacag inuu iga qarnaayo inuu wax iga qarnaayo ogaansho macna dee rag waa garanaysaa og warqadii haddaan saa u fiiriyey rag badan baa iga soo baxay oo aan maskaxdayda macnaha wax weyn u dhimi macnaha oo faamiligayga ah saaxiibadayga ah kuwa aan aqaan ah waxaa ku jira beeldaajaha ayaa ku jira maxamed wax qorshaysan inuu carmo iyo meelaha tago oo dadka isimada iyo dadka macnaha nabadoonada ku amsaxo macnaha dad la leynaya ku qoraa waa akhriya dadka ugu horeeya horta beeldaajaha maxamed ismaaciil cabdullaahi waa ku qoraa ninka la yiraahdo nabadoon musamira waa ku qoraa nabadoon أبشر ياسين دلمر إسماعيل أفتقي أو كبرها تمجلع أو أفتقي أو كبرها تمجلع فارح يوسف أحمد أو كبرها إسماعيل فارح عمي أو كبرها ليراه والولالكي أو تليها عرمو بوليسكا ونقول المعذر نهي أو حبيب محمد شير ليهو تليها سوا كجري نحرد كجري أو ليهو حبيب هيتو kaas waa ku jiray rag badan baa ku jiray oo hadda taan xuseen taliyaha qaybta ku jiray jaamac Cabdiqaadir jaamac Dirir waa ku jiray Yuusuf Axmed baa ku jiray kallan baa ku jiray ninka Absamed waxa Yuusuf Xasan dad badan baa hayeen Fando nin laho ku jiray ma garanayo Axmed baa ku jiray Diyaano waxa ku jiray ninka la dhaho rag badan baa saaxiib ku jiray fara badan hadda aan saxdeeda ka baxay baa ku jiray marka waa yaabay macnaha ninkaas marka maxay ahaayeen maxaa loo jeedaa loo macnaha leen bay ahayd madaxda baa soo fulisay markii arrin iyo qaraxyo isiil baa ku jiray in loo geliyo armo gabagabada macnaha lagu soo gogosho dadka wixii raacaya oo macnaha dee wax la soo leynaya gaarbay anagu diro laan ahayn ma garat ya haduuna khasbada dee khasab madaxweynaha haddaan macnaha shaqeeyo oo wixii macnaha dee magaalada xun
oo dhibaato ku wada oo soo daba jiro macnaha dee waxaas dadka wax leynaya cafis madaxweynaha inaan la shaqeeyo macnaha dee dadka ku jira oo magaalada dadka soo dhammaynaya oo dadka u tashaday ya in amiirkooda soo qabto ya guul bay u noqotay ya wixii galay malagood galayna dee malagood baa galay macnaha wad lama celin karo maalintii urkooda ku jireen baa inay dhintaan la qoray